xulashada hogaamiye samata bixin kara dalkiisa waxay ku xiran tahay fahamka bulshadiisu ku kala dooran karto hogaamiye la tijaabiyey oo lagu guul daraystay qaabka hogaamintiisa iyo hogaamiye la mahdiyey lana mahdin doono hannaanka hogaamintiisa. taariikhda uu qof mas-uula uga tegayo dalkiisa waa waxqabad loo aayo kaasoo ay ka sii muhiimsan tahay marka la joogo dal sida Soomaaliya oo kale ah oo hay-adihii dawliga ahaa ay weli dhismayaan. ra'iisul wasaarihii 19aad ayaa ku suntan maskaxdii ka dambaysay tallaabo kasta oo Soomaaliya u qaaday dhinaca guusha 4 sano ee la soo dhaafay. mudane xasan cali khayre oo haatan ah musharax madaxweyne ayaa dadweynuhu weli waxa ay ka hadlayaan raadka waxqabad ee uu ka tegay 3 sano iyo barka xilligaas oo uu ahaa wasiirka koowaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ka bilow ciidamada siyaasaddii dhalinyarada u muujisay inay yihiin milkiilayaasha dawladda ilaa deen cafinta waa guulaha waaweyn ee Soomaaliya tiigsatay intii uu xafiiska joogay mudane khayre. dadweynaha ayaa sidoo kale waxay odorosayaan in khayre haddii loo doorto xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu la iman karo siyaasad furfuran oo dhabaha u xaarta Soomaaliya isku filan. mudane xasan cali khayre in la doorto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa muwaadin xaq u leh inuu wax doorto lana doorto. intaas waxa sii dheer nin mataqaana hogaamiye la soo tijaabiya 3 sano bartuu joogay wuxuu qabtay cad sida dhismaha ciidamada qalabka sida mataqaana maxay sar u qaadida dhaqaalaha iyo Allah musta'aan waxa kale oo kamid ah mataqaana maxay bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka amniga lama soo koobi karo waxyaabo uu qabtay 3 sano bartuu joogay. waxaan ka codsanayaa labada aqal baarlamaanka kuwa dooran iyo kuwa la dooran doono inay bila shuruud la'aan ku siiyaan musharax xasan cali khayre madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka insha Allah wuxuu dooran yahay. waxyaabaha uu qabtay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre waxa kamid ah inuu dhisay ciidankii dalka inuu soo daayay barbaarta Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed qaybo kamid ah oo ku xirnaa dalka dibadiisa inuu dalka dib u dhisay. waxaan rajaynayaa hadduu madaxweyne noqdo inuu waxyaabo badan dalka u qaban doono oo ay kamid tahay inuu dhalinyarada Soomaaliyeed ilgooni ah ku fiirin doono iyo haweenka Soomaaliyeed inuu dalka dib u dhisi doono inuu ciidamada sida maanta u dhisay si ka wanaagsan u soo dhisi doono. sharaxa xasan cali khayre mayba ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya mayna qobaday wax badan intiisu dhalinyaro sahay wax badan ay email raayid qobaday intiisu ra'iisul wasaare u sahay ما يكون شقي هم اللي رايت يجيبوا ديسك دلك سدي عيدن كان عندنا ما يبغى جيس مدحويني وانا كنا إن شاء الله ما يكون فلان يسبدل وين يد وين تسقطوا دون هذه لاير عديس وقت بدنا ما يبدل دون على غيره ده وانا قاف سيستماتيك يا لدولنا يد بدل دون سيهوري هرمرك مثلا سمي وبعد ما اللي رايت هرمرك كيادك سيد من عندنا تسيب على رأي تسقطوا رجال إن شاء الله. وزاري هراء حكومة الصومالية هذا مشرح مدحويني إنه حسن على خيره إن أرتواني دنيا وأنا واحد بدن كسر فريق الوطن كهدي وهجان كدلك هلا وحنا جبنا أنا وفرن أنتي هراء 3 سنة بركة أنت حلك وهاي وحقبت كليين بيت هدي وكل تحل كناه وحنا فرصة أنا قدرنا تعال لأن يرضى ما دام رئيس الوزراء حسن على غير لقطري إنه لأن يرضى كبدي هاي دقات لأن يرضى وهستو تاسوا فرصة الجوني لأن يرضى سكرتو إن وطن كشغل كهلان قبع رقالها وننتي كان رئيس الوزراء على خيري markuu xilka qabtay dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideystay barnaamijkii ahaa ee new deal ee shaqaalaha gobolka Banaadir dhalinyaro badan lagu shaqaaleysiiyay ee lacag ka qaaday jiray marka waxaan dhihi karaa aragtida haddii uu khayro nasiib u helo xilka inuu hogaamiyo dhalinyaro badan oo jaamacado dhameeyay oo baakadaha haysto shahaadooyinka ayaa dib fursad u heli doono una shaqo tagi doono dalka iyo dadkaba. xasan cali khayre way ku yaabay hub la dooro intuu ismadu ra'iisul wasaaraha وسيدا دالك والهان كقوة إيه دالك لقيامة إن أتصل ونأكسن أو معقول أو نيسمله أكو دورتان مدحوينها وأنفع دون إن شاء الله. كره أهان يكفكر أهان كأحمد أهان وحان ستيلها ما أنت هدان خلها حلين كمية برلمان آخر الصوماليات
waxaan u dooran lahaa madaxweyne mudane xasan cali kheyre waxaan ku dooranaa wax kale ma aha waxaan isdhihi karaa waa madaxweynaha keliya ee dhallinyarada soomaaliyeed oo aan maanta fursado waxbarasho helay laakiin waayey equal opportunity oo ah in loo sinnaado xataa fursadaha waayey marka waxaan leeyahay insha allah baarlamaanka soomaalida waxaan ka codsanayaa inay fiiriyaan dhallinyarada soomaaliyeed oo aan ka nahay 70% sidii hore loo sheegay